السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله لما أنت والدي سلامي ميلك ساعات جوكتان ما أنت وحنا قلت لك على موضوع يروك وبنو إسوجي تكين الإذن لو ذاقو ولا الله الموضوع عسو حوية إن الناس حسوس إنه غيري إن الناس حسوس إن لو نقول إلى حقيس إن الناس حسوس إن إلا قلي دون قبر صدح مترأة والله الله سبحانه وتعالى وحليه هي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور ولا أدونك وكدو أدونك ودلدل ودلنتاد ماشي نسوق سوا جود كاير ودلك هوستيس ودلك إنه كفان إنه ما أنت لا إليه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولا الله adduun in lagu noolaadaa waa sax laakiin in la israacsiiyaa ma aha ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk walaa tabqi alfasaada fi lardi walaalayaal mid kastoo maanta ina ka mid oo caafimaad qaba farxad reyn barwaaqiya boshbosh buu ku jiraa laakiin dhibta iyo wax kasta waxaa dareemaya qofka maanta qabri ku jira ama qofka maanta qabri qiilka u saaran qofkii xanuunsanaya maanta dareemaya caafimaadku wuxuu yahay qofkii xanuunsanaya maanta dareemaya cibaadadu waxay tahay dhallinyaronimadeen waqtiga kama faa'iidaysano walaalayaal waqtigeenu ku dadaalno macaasidii ilaahay waynu iska dayno alfiraaq nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay aadanuhu laba kama faa'iidaystaan as-sixatu wal-faraaq maanta dhalinyaraynu nahay haasawe hawlo adduun shaqooyin lacag gabdho macsi waxbaynu ku mashquulsannahay laakiin maalin baa waxaa dhici doonta walaalo qofka hadduu sidan isu sii raaciyo inuu labada indhood ka ilmeyn doono sidan u faraxsanaan maysid sidan u labisan maysid sidan u meydhan maysid maalin baa dhici doonta adiga lagu maydhi doono adoona idan lagaa qaadan adiga lagugu tukan doono maanta tukaa lagu leeyahay maalin lagugu tukan doono qabri 3 mitir ah lagu geyn doono qabrigoo dhan maaha meel yaroo iila lagaa gelin doono dadkoo dhan ay kaa imaanayaan ummadda kuugu jecelaya si fiican ku awdeeya walaalayaal marka waxaa leena ka raba inaynu geerida xasuusnaato almawt wabillahi tawfiiq